السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت la soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada haddaad nagu cusubtaa subscribe inoo dheh haddaad hore noola joogtane laagtii sheerta commentiga waa inoo dhiirigelin maanta waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala faa'iidada uu leeyahay oliveraha ama dacaarka timaha maasha allah tiro oliveraha ama dacarta wuxuu aad ugu wanaagsan yahay skinka iyo hairka qaybta hairka ayaan maanta ka hadli doonaa insha allahu tacaala sidaan wada ogsoonahay waxaa ka samaysan kartaa hair mask ama waxaad u samaysan kartaa saliid ahaan asigii waxaa isku karkarinaysaa saliid qumbo qaybta dhexe ee jeelka ah kaligeedna waxaad u isticmaali kartaa condition ahaan marka qaabka aad u isticmaalaysaa haddii aad saliid ka dhiganayso asigoo sidaan ah ayaad jarjaraysaa saliidda ayaad kula daraysaa waxyar ayaad dabka saaraysaa markuu midabkeeda saliidda isbedelo badanaana saliid qumbaha ayaa ku wacan waa ka soo dejinaysaa waa miiranaysaa meel ayaa dhiganaysaa haddaad condition ka dhigaysana qaybta dhexda oo jeelka ayaa madax marsan kartaa qaybtaas ayaa madax marsanaysaa bac ayaa ku xiranaysaa haada wasalaam hadhowt waa iska dhaqaysaa marka muxuu faa'iido leeyahay waxaa ku jiro vitamin E ayaa ku jiro sidoo kale waxaa ku jiro vitamin C vitamino fara badan ayaa ku jiro timaha aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin sidoo kale timaha daadanayo way u wanaagsan tahay timaha xitaa wuxuu ka dhigayaa timo jilicsan oo madow maasha allah oo xariir ah sidoo kaleeto wuxuu u fiican yahay dandaraafka ama agoolka qodba sidee u taqaan ama toxobta madaxa gasha aad ayuu ugu wanaagsan yahay oo intaas madaxaada uu ka saarayaa runtii waa daawo waa maxay heetood aad iyo aad ugu wanaagsan timahaadana kuu bixinaysa oo growth kuu siinaysa sidoo kaleetana timaha israacinaysa timo waxaa jiro kala gaagaabta timahaada waa iska raacinaysaa sidoo kaleetana dandaraafta ama toxobtana way kaa bixinaysaa haddii aad timaha ku leedahay sidoo kale timaha midabkooda bedelmay oo kaleeto ama cadaanka noqday ama boorboorka noqday oo kaleeto nafaqa darada ka muuqato aad ayuu ugu wanaagsan yahay olivera jeelka ama dacarta waayo vitamino fara badan ayaa ka buuxa maxay aheetood waxaa jira xitaa haddaa kan heli weyso mid caag ku jiro ayaa jiro oo skinka loo isticmaalo oo 99 ku qoran tahay oliveradaas isagana madaxa waad u isticmaali kartaa sidoo kaleeto haddii aad saliid u samaysatana saliidaada si caadi ah maalinla ah ayaad u isticmaali kartaa mana ka dhaqaysid madaxaada oo ma ahan wax kiimika ah marka saliidda haddaad ku karkarsato caag ayaa ku shubanaysaa markii aad kala miirato saliidaada waxay kuu noqonaysaa saliid oo midabkeedu yahay green ama cagaar madax ayaad u isticmaalaysaa aad ayuuna ugu wanaagsan yahay dhanka madaxana aad ayuu ugu wanaagsan yahay dacarta waxaan ogsoonahay waxaa laga sameeyaa kareemo fara badan waxaa laga sameeyaa shaambooyin saliido waana ka qaalisan yihiin kuwa kaleeto marka faa'iidadiisa halkan laguma soo koobi karo dacarta ama oliverada aad ayay ugu wanaagsan tahay timaha sidoo kale timahaada hadday meelaha ka banbanaan yihiin oo kaleeto ama maxay aheetood dadka maxay aheetood waxaa jira timaha meela ka biibaan oo kaleeto ama ay ka guurguuraan timaha aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay rag iyo dumarba way isticmaali karaan soo dhawaada noona sii sheer galay insha allah